magacaygu waa Maxamed Xasan Aadam waxaan ku magac dheerahay Maxamed Fadli. shaqada hadda ka hayo way badan tahay runtii laakiin si guud ahaan maamulka Markazul Fadli ayaan ahay. waxaan ku dhawahay barnaamijka aad u mahadsan tahay magacaydan waxa weeyaan Ubayd bin Xaj Maxamuud. arday macallinkii waalidka baa duca ka soomisay oo quraanku maanka u degayay maxaba loo saaray oo maca akhlaaq iyo suluk sharaf iyo maamuus leh oo munazalka muqaddaska lala mataneeyay oo maalin iyo leyl akhriya. markaska waxaan ka ahay mudiir ku xigeen ama maamul ku xigeen. markaska daruusta ka baxda waxyaabaha lagu barto waxaa ka mid ah si guud ahaaneed quraanka kariimka oo laba qaybood ahaan qayb quraan taxfiid iyo qayb iskuuley ah. waxaa kaloo lagu bartaa markaska qaybta tacliinta asaasiyaadka oo loo yaqaan farbarka oo si casriyaysan oo maaragtay aad u wanaagsan ardayda loo baro iyadoo weliba loo raacinayo tajwiidkii ayagoo ardayda ka dhisan xagga tajwiidka iyo qoraalka iyo akhriska dhinac kastaba markaas ka bacdinaya quraanka aadaya. runtii shaqo aad iyo aad u ballaaran ay ahayd labadii sano aad iyo aadna u adag runtii ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadinaynaa. labadaas sano ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo suurtageliyay inaan soo saarno 3 dufco oo aan anaga u soo bilownay alif ilaa iyo ay tajwiidka dhameystaan kadib saasay quraanka ugu gudbaan bifadlillah waafajintii ilaahay waaye. waxyaabaha kale oo noo suurtagal maxaa waaye ardaydii soo baxday inaynu shahaado guddoonsiinay sidaad arkaysaan oo daawanaysaan akhriskooda sidaad arkaysaanba iyo qoraalkoodiba dhammaan waxyaabo badan oo runtii aan ogaaga farxinana way jiraan oo ay ka mid tahay calaa sabiil mithaal inay trip aadaan tripka ay ku ciyaarayaan waad daawan kartaan runtii waayo shaqo kastoo la sameeyo shaqo kastoo la bilaabo in carruurtii la dhiirigeliyo laga farxiyo oo qof kastoo shaqo sameeyana niyad in loo dhiso aad iyo aad runtii ugu fiican tahay. oo maca tajwiid inuu xifdiyo mawla ku arsaaqay oo maca tajwiid inuu xifdiyo mawla ku arsaaqay oo marinka nabiga iyo sunnaha meelaan uga leexan markaz al-Fadli horta maadooyinka uu bixiyo si guud ahaaneed waa laba qaybood ahaan hoos ahaan way si kala baxaan sida guud quraanka kariimka ah iyo qaybta farbarka oo ardayda laga soo dhisay asaaskii farbarka ayaa ugu muhiimsan. waxaa kaloo noo dheer maadooyin kale oo ilmaha asaasiyada tarbiyada islaamiga laga dhisayo qaybtii sheeg sida aqeedada siirada xadiistii oo si mukhtasar ah oo su'aali jawaab loo baro. taas iyadana waa wax dheeraad oo maartay ay dheer yihiin duruusta quraanka iyo farbarka wax u dheer waaye iyo tarbiyadii iyo waxa dheeraad iyo adkaaraadkii ducooyinka in la baro. markaska wuxuu ka kooban yahay laba qaybood ahaan qayb farbar ah iyo qayb quraan ah. qaybta quraanka laba ay u sii kala baxdaa waa qayb quraan taxfiid ah oo maalinka dhan joogayaan iyo qayb quraan oo iskuuliya oo maartay maalmaha iskuulka jiro half time imaadaan
maalmaha iskuulka jirin oo sabti xadda camalna full u joogaan. waxaan halkan baaqad u dirayaa waalidiinta iyo ardayda maadaama oo noo dhamaaday sanadka 2024 oo haddana aan gelinay sanad cusub dadaalkii aan soo wadnay 2 sano oo hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu mahad celinayna waxay noo qabsoomeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan ugu mahad celinayna iyo dadkii waalidkii iyo ardaydii dadaaleen iyo macallimiinta juhdiga ku bixiyeen intaba aad iyo aad ay u mahadsan yihiin باقي marka wuxuu noqonayaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ardayda lagu dadaalo oo maaragtay hadafkeen uu noqdo jiil oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqoono oo diintii ku toosan in la soo saaro oo lagu dadaalo ardayda juhdiga iyo dadaalka socdina la sii laabo oo maaragtay inta aan sanadka hore soo qaban in ka fiican sanadkan insha Allah soo socdo oo 25 inaan insha Allah aan qabana aan rajaynayna marka waalidiintana waxaan ka codsanaynaa inay nala dadaalaan oo ardayda garab istaagaan iyo macallimiinta la shaqeeyaan oo maaragtay ilmihii marka ay si fiican ay u soo baxaan لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا waalidiinta مركز الفضلي runtii waxaan leeyahay dadaalkay wadaan ana la sii dadaalaan oo shalay meeshii na keeneen meel ka sareyso 2025 insha Allah inay nageeyaan oo aad iyo aad wala sii dadaalaan insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah waxyaabo aad u qurux badan inaynu soo bandhigi doono 2025 rajadeena waay waxaana ku soo tagali kartana maxaa waay waalidiinteena inay nagu garab siiyaan insha Allah waalidiinta idaawanayaan oo khaasatan reer Nairobi joogo waxa ugu baaqaya inay markaska uu leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada meel kasta joogtaan qaarkii u soo guuri karo waxbarashada maayo ubadka aasaaska diinta runtii muhiim jiddan u tahay ubadkaada intaad iskuulka geyn lahayd inaad aqeedadii iyo quraankiisii iyo asaaskii ka dhisto ayaan ugu la talin lahaa runtii أنا مركز كان صوب وقضان أو عرضت إكين صدق إن شاء الله. أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر